Subscribe saar halkan si aad u hesho muuqaal walba oo aan halkan soo gelino. Mahadsanid. Beri baa waxaa jiri jirtay boqortooyo ku taallay badda dhexdeeda. Boqortooyadaas waxaa ku noolaa gabdho badan iyo rag badan. Banaanka boqortooyada waxaa ku yaalay god weyn oo ay ku nooleed naag dad qalata ah oo duq ah, sidoo kalena fool xun. Dad qalatadu waxay lahayd cidiyo aad u waaweyn iyo timo madow oo wasakh ah. Boqoradii boqortooyada ayaa naagtan dalqalatada ah ka ceelisay boqortooyada maadaama ay ahayd mid cunta dadka. Boqoradda ayaa sabab u ah in godkan cidlada ah aan ku noolaado oo aan gaajoodo. Waxa igu ballan ah inaan cafin doonin mid ka mid ah dadka boqortooyada ku nool, xitaa ubadkooda ma dhaafi doono. Boqoradii boqortooyada ninkeedu wuu dhintay, waxa uuna uga tagay hal gabar oo la yiraahdo Anjali. Waxaan rabaa inaan si degdeg ah ugu guuriyo gabadhayda oo aan u guuriyo wiil kaasoo mar walba siiya farxad. Arooska gabadhayda waxaan u qaban doonaa si qurux badan, waxaana dhigayaa xaflad weyn, waxayna xiran doontaa dhar qurux badan. Dad badan ayaana imaan doona. Waxaan rabaa in arooska gabadhaydu uu noqdo mid si weyn loogu dabaaldego. Hooyo, anigu ma doonayo inaan guursado, mar walbana waxaan rabaa inaan adiga kula joogo, meelna ka aadi maayo. Gabadhaydii mararka qaarkood guurku waa lama huraan, waayo gabar walba waxay rabtaa inay noqoto hooyo oo ay yeelato ubad iyo nin. Dhanka kale, dalqalatadii waxaa maskaxdeeda ku jiray sidii ay uga aarsan lahayd dadka ku nool boqortooyada. Qaab kasta ha noqotee waa inaan ka aarsadaa dadka halkan ku nool. Dhanka kale, qasriga waxaa la gaaray dhalashadii Anjali. Boqortooyaduna waxay noqotay mid iftiin iyo farxad ku jirto. Sababtuna waxay ahayd inay maalintu ku beegneed maalintii ay dhalatay Anjali. Qasrigana waxaa isugu yimaaday dad badan oo ka tirsan boqortooyada. Xafladda dhalashada Anjali ayaana si weyn loogu dabaaldegay. Kadibna waxaa qasriga soo galay naag aad u qurux badan. Imaatikaaga ayaa xafladda qurxisay waxaan rabaa inaan ku baro gabadhayda qaaliga ah ee Anjali. Kadibna naagtii dalqalatada ahayd oo iska dhigaysay gabar qurux badan ayaa u dhaqaaqday dhinacii Anjali. Gabadhaydii bal arag gabadha qurux badan ee ku timid si ay kula kulanto. Naagtii ruuxaanta ahayd markay aragtay Anjali way dhoola cadaysay, wayna salaantay iyadoo leh dhalasho wacan Anjali. Farxad badan ayaan ku rajeynayaa. Magacaygu waa Riyaana. Naagtii dalqalatada ahayd ayaana isku bedeshay dalqalatadii argagaxa badneed, waxayna soo aaday shaybaar, waxayna sameynaysay sixir. Waxayna tiri iyadoo qoslaysa, ugu dambeyn waa ka aarsan doonaa dadka boqortooyada ku nool, waxaana sameeyay wax aan uga aargudan doono ceebtii ayay geysteen. Kadibna naagtii dalqalatada ahayd oo iska dhigaysa gabar qurux badan ayaa waxay soo gashay qasriga. Naagtii dalqalatada ahayd waxay Anjali u keentay hadiyad yar. Hadiyadana waxaa ku jira sawir sixir ah oo aad u la yaab badan. Marka aad seexanayso habeenkii, si qarsoodi ah sawirkaas ku dhaji gidaarka qolkaaga. Marka aad sameyso, waxaad noqon doontaa mid aad u qurux badan oo ka qurux badan sidii hore. Markaas ayay naagtii dalqalatada ahayd si dhaqso ah ugu noqotay qaabkeedii dhabta ahayd, waxayna ka baxday qasriga iyadoo gurigeeda ku noqotay. Dalqalatada waxay tiri, waqtigan waa waqtigii aan aargudan lahaa, dadkanina waxay ogaan doonaan awoodeyda. Habeenkii markii la gaaray, Anjali waxay sameysay wixii naagtii dalqalatada ahayd u sheegday, waxayna sawirkii sixirka ahaa ku xidhay qolka. Kadibna way seexatay. Kadibna Anjali waxay isku bedeshay dalqalato argagax badan oo cabsi ah. Indhaheeduna waxay noqdeen casaan dhalaalaya, timaheeda oo dhanna way kala furmeen oo waxay noqdeen madow guracan. Waxayna tiri, hadda dadka oo dhan waxaan ka dhigi doonaa dalqalato sida aniga oo kale ah, mana cafin doono qofna, dhammaantoodna waan bedeli doonaa. Markaas ayay Anjali si toos ah ugu dhaqaaqday gurigii ugu horreeyay ee boqortooyada ku yaalay, iyadoo rabtay inay gurigaas ka bilowdo inay dadka ku cunto.